قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها وكذا بهادي نبينا قد سطرت قصص روائعها يشع. waxaan xasuustaa hargeysadii hore nin waalaayo meelahan fadhiisan jiray ninkaasi hilib loo ahaa casar kasta gabadh baa u iman jirtay qurux badan hilibka wixii u yaala bay ka iibsan jirtay markii dambe uu cilaaqay sheekadii waa la isla fahmay dabadeedna waa la isku lug daray way ka xaysay waqti fiida marka sida uu isagu ka sheekeeyay waxa ay geysay boodii ta jino maxaa tahay dhul caalamkeena aan ahayn oo leerka ka baxaya iyo waxa la kala macaashiyo baa mushtariga aanad malaynaynin gurigoodii bay geysay marka waxay kula dardaarantay ku tiri wiil yahow cadceedu kugu soo bixin guriga marka dhowr maalmood buu ka dadaalay inay cadceedu ugu soo baxdo maalin dambe ayay hurdadii la tagtay cadceedu soo baxday wuxuu arkay isagoo meel gudaafada hurda bogana ay kaga jirto baashan la yiraahdo mas'aagaleyda ay kaga jirto wuxuu jiifaa gudaafadaha naasahblo ayuu jiifay halkii ayuu ku waashay ninkii waxa kaloon xasuustaa 85 haddaan 84 ahayn wiil dhalinyaro oo ardaya oo neersanka barta isbitaalkii digfeer ayaa mar oo waxbarashadii ku yara caajisay buu xagga tarabuunka muqdisho u soo yara kacay digfeer iyo tarabuunkana waxoogaa bay isu jiraan intaanu iftiinkii tarabuunka soo gaadhin baa wuxuu arkay naag cadar aad isugu buufisay deedna wuu cilaaqay iyana way la qaaday waa la soo raacay waagaas ninkii garanaya dumarku waxay xidhan jireen kaba la yiraahdo qaraafiico waxay ahaayeen kaba xagga hoose qori ah way sanqari jireen oo markay laamida lagu socdo qararac bay oran jireen oo xagga hoose qori ahayd wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yakhfina min sinatihinna si maxaan ku yiraahdaa loo eego talaabadooda iyo actionka ayaa shaydaanku wuxuu hindisay inuu kaba qori ah oo bidhaadmiga soo sameeyo marka intii madowga la soo marayay sanqadha uu maqlayay wiilku laakiin waxa uu islahaa kabihi qaraafiicaha bay xidhan tahay tarabuunkii marka lagu yimaado tarabuunka wada hormarta leer baa ku xidhan siday u sheekaysanayeen buu hoosta oo lugaheedii eegay dadna wuxuu arkay inay leedahay qoob dameeraad ardaygu wasasay waa cararay wuxuu u cararay jihada iyo waqooyiga warshada caanaha ee halkaa kaga soo jeeda inanku waa qayliye waa sasay waa orday koonaha warshada caanaha oday baa fadhiya garweyn iska fadhiya Allah adeeriga qabo buu ku yiri markaasuu ku war maxaad aragtay Allah adeer naan ka qoob dameeraad la waan arkay odaygii show isaga laftiisa isna jina deedna isna intuu qoobkii u soo saaray oo yiri makan oo kale waxa intuu halka laabta kaga dhuftay ayuu ku gujiyay oo yiri matan oo kale cagtan oo kale lahay yarkii yara koomo galay meeshuna waa dad badan ma socdaan waa meel cidla oo halkan maxaan ku raaa isbitaalkii militariga ka xiga halkan warshadii caano laga ruuxay baa ka xigta waa meel cidla habeenkii oo dhan halkii buu yarkii oo koomo ku jiray waagii markuu bariyay ayaa ilmihii oo meesha jiifa oo koomo ku jira baa laga qaaday